kulanti xiise leh daawadayaal halkani waa Horfadhi Media kuna soo dhawaada barnaamijkeena falaqaynta Jimcaha maanta oo aynu ku eegi doono xaaladda dalalka Turkiga iyo Maraykanka kadib markii Maraykanku ay toddobaadkii hore Turkiga ku soo rogeen cunaqabatayn dhanka dhaqaalaha ah taasoo ka dambeysay markii dawladda Turkigu ay diiday inay xorriyadiisa dib ugu soo celiso baadari Maraykan ah oo ku xidhan dalkaasi Turkiga sidoo kale arintan ayaa wadamo badan oo caalamka ah saameyn ku yeelatay barnaamijkeena maanta waxaa sidoo kale qayb ka ah dagaalkii lagu qaaday sheekha baadariga iyo waxaas ugu marmarsoonayaan waxaan leeyahay waxba ka qaadi maayaan Turkiga Turkigu dabcan waa dawlad islaam oo xoogan caalamka islaamina maanta waa dalka ugu adag markay timaado dhaqaale ahaan maskax ahaan iyo sidoo kale go'aan ahaanba waa qaar ka mid ah daawadayaasha Horfadhi Media oo barnaamijkeena nagala qayb qaadan doona balse marka hore aan ku soo dhaweeyo xaashi mahadsanid yaasiin dabcan jimca wanaagsan idilkiinba dabcan inta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed daawanaya isla markaana ay socdo isla markaana qarkood qaybka barnaamijka falanqaynta maanta runtiina waxaan jeclahay inaan qodobkan isku dul taago xaaladdan siyaasadeed iyo dhaqaale ee u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo dalka Maraykanka arintan Turkiga iyo Maraykanku in dhaweyta wararkooda waynu wadnay isla markaana waynu maqmaqlanay runtiina in badan baynu isku taaganay in labada dal ay xurguf xoogan oo dhinaca siyaasadda ah ama dhaqaalaha yaasiin oo ay iyo asxaabteena dabcan sad la socoteen ba ay ka dhaxaysay arrimona hadaynu dhinaca siyaasadda in badan baynu falaqeynay waa laga yaabaa ama wararka aad bay idinku badnaadeen laakiin arrintan haatan soo shacbaxaysa waxay muujinaysaa labadan dal oo mar kamid ah dalalkii isugu dhawaa inay aad u kala fogaanayaan dalka Turkiga tan iyo intii dawladda Cismaaniyadu ay burburtay isla markaana la dhisay waxa loo yaqaan Turkiga casriga waqtigii ka soo bilow ninka loo jiray Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk tan iyo inta waxa ka dambeeyay waxa jiray wax ideolojiyad Turkigu ama policy ama siyaasadda ku shaqeynayay oo ahayd wax loo yaqaan istaraatiijiyad dhinacaas dhibaato la'aanta iyo inuu taxalif wanaagsan la sameeyo dalalka oo markaa juqraafi ahaan saameynta xooggan ugu yeeshay wadamada Yurub kamid ahaayeen iyo dalkaasi Maraykanka waxyaalaha waaweyn baa soo dhaxmaray dalkaasi Turkiga tan iyo 70kii sano ugu dambeeyay oo ka mid tahay in Maraykanka iyo Turkigu ay taageero xoogan ay dabcan ay wada ahaayeen ama xulafo ahaayeen sida dagaalkii xataa Kuuriyooyinka ciidamada Turkiga ka qayb qaatay oo dalka Maraykanka caawinayay isla markaana ku geeriyooday dagaalkii Vietnam Turkigu wuxuu kamid ahaa dalalkii taageeray dagaalkii hore ee Ciraaq 1990kii Turkigu uu dalalkii taageersanaa uu kamid ahaa laakiin dagaalkii 2013kii saddexdii andhaho dagaalkii dambe Ciraaq lagu qabsanayay Turkigu ka caga taagleeyay sidoo kale hawlgaladii Afghanistan Turkigu aad buu uga qayb qaatay kolka ay timaado balse siyaasadda Turkigu hal mar ayay isbedeshay tan iyo intii xisbigan islaamiga ah ee loo yaqaan xisbiga cadaaladda iyo horumarka ama horumarinta dalkaasi Turkiga Erdogan horboodayo uu dalka qabsaday runtiina wuxuu la yimid laba fikradood oo yaab leh oo dalka Turkiga aad ugu ah naadir ama dhif naadir ku aha mid waxay ahayd in ugu dhiirado in iyadoo mararka qaar kood dalka Turkiga ay dambi ka ahayd in gabdhuhu ay wajiga qariyaan ama ay xidhaan dabcan xidhaan foodada ama xijaabka in uu dawladda dalka Turkiga ay meel marisay isla markaana ay awood siisay dhalinyaradii sidoo kalena ay ogolaatay in dadka dib loogu celiyo diinta Islaamka oo runtii ilaa xad markii hore dalku ahaa dal iclaaminimadu ay biyo dhigtay taas waxay runtii kalsoonidii faraha badneed reer galbeedku ay ku qabeen إعلاميات dalka Turkiga ay shaki gelisay sidoo kale waxa dalka ka jiray xukun militarigu ka dameeyaan ama qof militarigu wataan militariguna dad aad iclaamiyiin oo ah dalka reer galbeedka aad ugu dhow bay haayeen ama qof reer galbeedka wataan waxaan luqadda qalaad ugu yiraahdaa puppet ama Soomaalidu ay taqaano daba dhilif oo kale qof meesha jooga ama magacuyaal si kale u dheh iyo qof dabcan ama group isku xiran oo aan ka og fogeyn militariga laftooda oo marar badan iyaguna dalka xukumayay gacan military ku hayay dabcan dimuqraadiyad waxaan lagu sheegi karin sidoo kalena aan ka fog dhaqanka islaamka ayaa dalka ka jiray maalmo aad u madowna dalka uu soo maray runtii xisbigan markii uu qabsaday arinta wuxuu ka bilaabay in uu
bartaameed ka dhigto dadka da'yarta ah dadka dhalinyarada waxa aad loogu booriyay inay bartaan diinta islaamka gaar ahaan luqadda carabiga aba dalka aad loogu soo dabaalay inkastoo luqadda carabiga mar walba ay dalka door ku lahayd haddana doorkeedu aad buu u yaraaday xilligii ay burburtay cismaaniyadii wixii ka dambeeyay dabcan taas waxay door ka qaadatay in dadku ay dib u fahmaan diinta islaamka isla markaana ay runtii ay dabcan ay aad ay u jeclaadaan oo dhaqankoodii dib ugu noqdaan waxyaalaha kaba markii hore ka qayb qaatay Turkigu inuu ilaa xad fogaado oo xagga Carabiyismka uu ka fogaado waxay ahayd xilligii dawladda Cismaaniyada dalalka Carbeed iyo suldaanadii Carbeed boqortooyinka Carbeed ee inta badan la aaminsan yahay in asal ahaan laga keenay qarbiga aad bay ula dagaalameen dawladda Cismaaniyada waxayna la garab istaageen dawladihii Britain ka mid ahayd iyo dagaalkii koowaad ee adduunka dalalkii ka soo horjeeday Jarmalka iyo dawladda Cismaaniyada oo isku daraf ama taxaluf aha waxayna dhabar ka saareen dalalkii reer galbeedka taasana keentay in ay 100% ay kala wareegaan ama 90 degree ay wareegaan Turkidu si kastaba ha noqoto taas waa taariikh dheer rutiina u baahan waqti badan bay naga qaadanaysaa inuu dhaxgallo waxaana u baahannahay dabcan dadka dhalinyarada doonayaan in culunta dadka ama taariikhda islaamka yaqaana in ay dabcan ay runtii jacayl baan leeyahay inay bartaan taariikhda islaamka ama wax ka og ayaguna way ogyihiin laakiin kuwa hadda doonayaan ama taariikhda islaamka wax ka bartaan raadadkeedu waa qoyan yihiin taariikhdaas waana runtiina internetkana way ka buuxdaa baxthi ama research ama yani daraasaad adiga qofiyana waad ku sameyn kartaa arrimahaasi marka waa soo yaalka taariikhda taas aan ka soo gudubno tan kale hadaan ku soo dhawaano tan iyo isbedelka xoogan ee dawladda Turkiga xilligan uu madaxweynahana uu qabsaday iyo taladiisa waxay la timi carcar xoogan oo ah laba arrimood oo reer galbeedka ku soo kufiyay inay dhalinyarada gacanta ku dhigto dad wadaniyiin ah ay abuurtay oo dalka jecel isla markaana dhadhan siisay macaanka diinta iyo dib u xasuusay urur islaamiga weeye marka loo eego ururada kale dalka ka jira xisbiyada kale dalka jira sidoo kale wuxuu aad xisbigan uga qayb qaatay wax loogu yeeray isku filnaansho ama isku tashi dhaqaale oo hadday tahay dhinaca tiknoolajiyada hadday tahay dhinaca warshadaha dhinaca militariga dhinaca tababarada dhinaca sayniska iyo dhinaca caafimaadka waana ogeena doorka dalkaas Turkigu uu qaatay Turkigu markuu isku arkay inuu mud yiri oo dhaqaale ahaan soo mud baxay ayuu runtii dhinaca siyaasadana cadaystay kadibna wuxuu yiri maya Maraykanka maya Britain maya midowga Yurub maya qaramada midoobay maya Carabta iyo sida dabcan oo la dhaqmayaan reer galbeedku maya mayadiisa aad u badatay taasana keentay in Turkiga iyo reer galbeedku ay dhabarkoodu isku jeediyaan arintu waxay safaraha ka haaday markii 2 sanadood ka hor dalkan uu afgambigu dhicisoobay ka dhacay taasuna waxay cadaysay ama si cad u cadaysay in marka reer galbeedku iyadoo cadayn badan aan loo haynin haddana arinta ugu weyn cadaynta loo helay waxay noqotay ninka loo haysto isaga iyo ururkiisa ee Turkiguna cadaynta ay u hayaan inuu dalka Maraykanka joogo wadaadka Fatixullah Gulen la yiraahdo dhaqdhaqaaqa Feta movement la yiraahdo ee la mamnuucay dalkaasi Turkiga ka jira arrimahaas oo dhan waxay markaasi Turkiga ku bariyeen in wixii hursanaa ee 12 sano ay ururkan nacaybkii loo qabay iyo sida dalkan taladiisu ay noqotay inay hal mar isla qarxaan taasana cirka ku sii shareertay waxay soo jiitantay arrintii hadeerto waxay marasaa in dalnaata oo kale uu cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha la beegsado taasna waxay daha si wacan uga rugtay markaynu dabcan wad la socoteen arrimihii Syria ka dhacay YPG iyo si Turkiga kooxda ka dhanka ah Maraykanka ku taageeray hadaladii aadkaay hore la isku dhaafsanayay yani hubkii laga mamnuucay dalkaas Turkiga cambaareen la'aantii Maraykanku uusan cambaareynin dhacdadii ama sidii weyn uusan ugu heelin iyo reer galbeedka oo dhan kacdoonkii la dabcay in talada looga tuuro ama afgambigii dhicisoobay dalkaasi July ka dhacay 2016 waxyaalahaas oo dhan way ka dheereegsantahay balse arrintu waxay hadeerto uun taagan tahay in ay noqoto in dhaqaalaha dalkan ama meesha dalkan uu ka jilicsan yahay dabcan la maroojiyo marka hal arrin horta aan dhigi kala cadeeyo ama aan maartay aan verify gareeyo oo yani aan aad idinku cadeeyo arrinta waxa weeye ku saabsan dhaqaalahan dalkan Turkigu horta dhibaatadan hadeerto dalka Turkiga ka jirta ee dhaqaalaha ah ee waliba xagga lacagtooda liicday ama lacagtooda qiimo beeshay horta waa wax caadi ah marka loo eego dalalka qaniga oo dhan way waxyaalo ka dhaca
marka warayso yani maaha wax masiibo ah oo aad u weyn oo sida inagu maskaxdeena kale markiiba ku soo dhacay maadaama inagu dan yara dalkeenu dal yani aynu dal burburaynahay sida maartay yani maaha sixir bar yani mar kaliya dalkii oo dhan inuu baaba'ay ama uu rugmado oo kale ama uu salka galay waa wax ka dhacay Shiinaha ayuu ka dhacay 3 sanadood ka hor arintan suuqa Shiinaha ayaa sidoo kale u wareeray Japan iyo suuqa Nikkei la yiraahdo ka dhacay Wall Street iyo Maraykanka ayuu waxaan ka dhacay 2008 ilaa 2000 iyo dabcan 10kii ba la soo gaarsiiyay inuu arrimaha kale ka dhaceen yani wax marka dhaqaalaha waliba ilaa xad way ka darnaayeen waxa darnaa kuwa Maraykanka iyo wixii ka dhacay ama sicir bararkii iyo dhaqaal daradii Maraykanka ka dhacday boqolkiiba 89 ka sii dareed waayo ilaa hadeerto hal shirkad oo Turkigu leeyahay bankruptcy wax la yiraahdo noqotay ama muslaftay ma jirto laakiin Maraykanka 10 shirkadood iyo 10 iyo boqolaal iyo kumanaan dukaan baa xirmay sidaas marka arintu maaha lacagtii uu qiimaheedii hoos u dhacay kadibna waxa xoogeystay oo leadki ama hogaankii la wareegay lacagtii dollarka ahayd oo lacagda foreign ah oo lacagda yani dalka aan galahayn taas horta inay u fahantaan way hadaba arintan waxa keenay laba arrimood baaba mid waxa laga yaabaa inay wararkeena way ku jirtay laakiin aysan dadku aad u fahmin madaxweynaha dalkaas Maraykanku madaxweynaha dalkaas Turkiga Erdogan wuxuu markii uu guuleystay ku dhawaaqay inuu la dagaalami doono dulsaarka lacagta dulsaarka arintuna waa arin markaasi xagga dabcan islaamka ama sharciga looga waa sharciga islaamka ma qabo in lacag dulsaar la qaato lacagta dulsaarka wuxuu marka ugu yeeray madaxweynaha dalkaas Turkigu wuxuu ugu yeeray inay tahay hooyada shaydaanka oo dhan yani waa lacagta dulsaarka tusaalahaan marka lacagtaada bangiga dhigato lacag lagugu darayo ama waxyaalaha loo yaqaano yani waa ribo markaas dabcan marka wuxuu doonayay inuu ka taqaluso arintaasi hase yeeshee waxaa la aaminsan inay ka hoos baxday in dhaqaalaha Turkiga yaala ay lacag lahaadle iyo dabcan lahaadle ay ku leeyihiin reer galbeedka iyo waxa loo yaqaano international investors ama dadka maalgashiyaasha caalamiga ah oo ayagu aysan waxba ka khuseenin oo dabcan aan muslim ahayn arrintan kuna waajibin aqoonsanayna dabcan arintan ribada aan aqoono ayagu kaba macaashaba waxa ay ka macaashaba ay tahay waxa loo yaqaano interestiga iyo waxyaalaha dulsaarka lagu helo arintaas marka waxay u baahaneed siyaasad degan oo markaas lagu kala saarayo oo dabcan dadka dhaqaalahoodu uu yahay dhaqaale dad muslimiin oo dhaqaalahooda dabcan iyo dhaqaalaha gaalada ama dadkaasi ama dadka sheeyaha lagu kala saaray ay taasu waxay qayb ka noqotay markaas inay walaac ku dhasho maalgashayaashii markaasi sheeyaha oo yiri lacagtiina aad wadanka ku maalgashateen iyo lacagta dadka bangiyada meesha ku yaala aad ka dhigateen hadaydan interestiba ku qabin de why marka yani dabcan su'aal calama su'aal marka galiya kadibna waxay naaqusiyeen maalgashigii xooganaa ayay naaqusiyeen iyo lacagtii ay soo qaadi jireen cadaanka hay'adda dollarka taasna waxay keentay in maartay sheeg dollarization-kii ama dollarkii yani meesha ka jiray uu noqdo yani wax yar ama uu runtii uu hoos u dhaco taasu lacagta ayay hoos u riday taas iyadoo ay sii dheertahay awalba buuqaasi uu jiray oo dabcan ayaa ninka wasiirka maaliyadda loo magacaabay Brad Alpayberg oo madaxweynuhu u yahay sadaq u yahay waa nin asaguna kamid ah dadka dhalinyarada dabcan dalkaasi ka jiray siyaasiyiinta dhinaca markaasi aad ugu jeera in laga taqaluso lacagtan xaraanta oo laga taqaluso lacagtan ribada loo yaqaano laga falaxasho dabcan taas markii ninka la magacaabay adduunka dalalka dhaqaalaha uu sareeyo qofka la magacaabo ideolojiyada iyo fikradda siyaasadeed uu aaminsan yahay dhaqaalaha suuqa wax bay ka bedeshaa waa arin adag inaynu inagu Soomaali ahaan dabcan Soomaali ahaan aynu fahanno laakiin dalalka dhaqaalaha leh tusaale ahaan hadallada siyaasiyiinta hadalkii madaxweyne Donald Trump uu barta Twitterka ku qoray ayaa dhaqaalihii Turkiga wax ka bedeshay marka suuqa iyo waxa isku xidhan hogaanka siyaasadeed markaasi ama afkaarta qofka hogaamiyaha uu aaminsan yahay ninkan marka wasiirka maaliyadda wuxuu aaminsanaa hadalka madaxweynaha ahaa in lacagtan ribada ah maalin noqoto qoorta laga gooyo laga taqaluso taasna waxay hadana hoos u sii dhigtay kalsoonidii maalgashadayaasha caalamiga ah ee dalka Turkiga waxay oo nin markaasi arintaba aan aaminsanayn baaba hadana la sii magacaabay hadalka madaxweynuhu intaaba ku ekaamay Erdogan ayadoo markii hore jubti ka soo yeedhay madaxweynaha ay jirtay hadana markii uu magacaabay wasiirkaasi dharbaaxa kale sii noqoto
dabcan se wasiirku wuxuu dabcan inuu dib uga gurto oo arrinta uu maslaxeeyo oo yiraahdo hadda maaha arrintu waqti kale noqonaysaa dabcan waxay u baahneed in dhaqaale xooggan oo arrinta lagu bedelo marka hore bilaayin dollar ay dawladdu diyaariso ay ugu tala gasho inay kula dagaalanto inaysan arrintan u imaan